markaas ilaahay xaqiisan ka noolaa laakiin in xataa qori leegu soo aadiyay soo waxaas dhamaantas nolosh maanta ku dambayso markaan jilbii dhulka dhigtay oo amaankii dhig oo si markaas dad khaylinay aan maqla marka xabadana ugu dhufteen gacanta iga dhufteen xagee ka dhacday hortaas iga dhacday intay ka gashay intay ka baxday maalintaas ay ugu halas badneed gaariga la qalbay nala gadoomay ilaahay amarkiisa waxay jirtaba in dadka la laayo iyo in la daayo lagu shaksanaa waxaan waa rakaab hal iska daayo dadka la leynay aad ka mid ahayd dadka lagu muro macnaha waxa bas tuuga marka lama yiri fiiqanay tuugi xabad lagu soo dhuftay tuugi soo xabad lagu dhuftiyo fagtay anaga markaas dhankan iyo xamar jajabka imaanayo otada soo marayna meesha cid leeyahay marka waxaan ku soo kordhacay dadka tuugi xabad ku soo dhufteen iyo aniga yaa kulanay markaas qorigii ugu qabteen marka tuugi ana leeyahay markaas marka qoriga xataa meeshan way iga dhaawacan tahay qoriga liifkiisa intii ugu dhuftay markaas uu jilbaa dhulka dhigo markaan jilbii dhulka dhigtay oo amaankii dhig oo si markaas dad khaylinay aan maqla markaas ayal xaafadu waa wartuug ma kada sallallahu marka qoriga intuu ku mashquulsanaa dad soo dhaxgaleen sidii aan gees leegu waday asigana gees la hadla soo celcelinay wili la tutuugayo maalin oo bad aadnay aniga iyo familkeyga kadibna biyaha aqoobsay soo waxaas dhamaantas nolosh maanta ku dambayso kadib wiilasheen mid kamid ah gacanta iga soo qabtay iga soo bixiyaan dabaal magseen waana yaraa soo waxa way maalintaas aan nolosha ka qoostay xasuusta anoo meel bareefad waxa ka xariiqayo aan sigtay laba qolo burcada inay qolkii bareefad igu soo gashay feesmay watay mooto feesma xabadana ugu dhufteen gacanta iga dhufteen xagee ka dhacday hortaas iga dhacday intay ka gashay intay ka baxday maalintaas ay ugu halas badneed oo gargaar aan lugahay ku raadsaday xitaa meesha dadna kama dhaweyn ana guriyaha ugu galay dadka wiil saaxiibkay markaa meesha ka dhawaa asigaan u tagay dan familigiisa yar caawiyay sidii aan gaari aan ku kareeso isbitaal aan ku tago si alxamdulillah maalinkaas ay ugu halista badneed wallahi waxay ahayd inuu safar aan ka soo baxay gurceel ka soo baxay xamar u soo socday ahayd markaas waxa jirta colaad waxa waay qabiil degabaalkii wuxuu ahaa gurceel iyo qabiil degabaalka hiiraan ana waxaan kamid ahaa qabiil gurceel kamid ahaa haddana colaadaas ninka soo qayb qaatana waa kamid ahaa maadaama marka aan wadada soo maray ee la qabtay waxa waaye weydiis ma jirinba colaad saayid ahaydba dadka dhamgeesa la gdaayay marka waxa lagu muranka waxa gala waxa waa kaliya meen muranka waxay jirtaba in dadka la laayo iyo in la daayo lagu shaksanaa waxaan waa rakaab hal iska daayo dadka la leynay aad ka mid ahayd dadka lagu muro macnaha waxa la dhaar dadka rakaab waaye dumarka ma ragga hala toogtaan laha iyo waa rakaab hal iska daayo laakiin dadka rakaab waaye baawurka gurceel oo ka imaaday waana waxa waa ceer waaye hala dilo iyo waxa waaye waxaan dadkan dad rakaab waaye hal iska daayo saacado badan ay qaadadee aakhirkiina waxa waaye waxay noqotay in la daayo marka waxa waaye qatar badan iska jira xamar inta la joogo xitaa qatar badan iska jiro sida qaraxii baalkii waxa ah 14 October kan ma kii koori oo 2017 gaari kuwa hadda xambuulada la saaro mid kamid ah marka oo degmada ay soo dirtay oo marka dadka soo danqayl lagu soo qaaday aan soo raacnay ilaahay amarkiisa waxa dhacday gaarigiisa oo soo socday oo marka gaariga la qalbay nala gadoomay ilaahay amarkiisa dad saas ah kuma dhiman waxa inta badi waxay noqdeen dad dhaawacma aniga waxa iga jabtay gacanta iga jabtay intaas ilaahay iga ekeeyay midaas ay ugu xumeed aan arko oo shil ah waxay ahayd maalin oo bad aadnay aniga iyo familkeyga kadibna biyaha aqoobsay soo waxaas dhamaantas nolosh maanta ku dambayso kadib wiilasheen mid kamid ah gacanta iga soo qabtay iga soo bixiyaan dabaal magseen waana yaraa soo waxa way maalintaas aan nolosha ka qoostay xasuusta maalin waxay aad xilli abrey u soo baxay degmada howdan qarax ka dhacay markaas aad ugu dhawaay maalintaas nolosheeda aad u naxaniyo qarax zaid ugu dhawaay qof igu horeeyay dib gaaray markaas zaid u naxay intii kale waxa waay caadi iska ahayd jawiga meelaha muu dhaweyn alxamdulillah saaxiib